dacarta waa dhir daaweed aad iyo aad u qiimo badan oo dhakhaatiirta iyo cilmiga caafimaadkaba waxtarkeeda la isku waafaqsan yahay. Haddaba halkan waxaan kusoo gudbinayaa ama kusoo ururi doonaa insha Allah faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira dacarta iyo weliba xanuunada lagu daaweeyo. dacarta waxaa ka buuxa maadooyin iyo fiitamiino uusan jidhku ka maarmi karin oo weliba aad u badan. waxaana ka mid ah fiitamiinada kala ah A, C, E, folic acid, choline, B1, B2, B3, B6, B12. waxaa kaloo ku jira macaadinta muhiimka ah sida calcium, magnesium, zinki iyo weliba selenium, sodium, iron, potassium, copper iyo magnesium. dhinaca kale dacarta waxaa ka buuxa waxyaabaha borotiinada laga sameeyo ee loo yaqaano amino acids iyo waxyaabaha dufanka laga sameeyo ee loo yaqaano fatty acids. waxaa dacarta laga helaa ilaa 20 amino acids iyo weliba 10 fatty acids, waana dhif iyo naadir tira intaa leeg oo laga helo geeda daawadyada kale. iyadoo weli aynu hadal hayno dacarta iyo faa'iidooyinkeeda, dacarta waxay caawisaa dheefshiidka, waayo dheefshiid xumada waxaan ognahay inay ka dhashaan cudurro badan oo saameyn ku yeelan kara caafimaadka qofka. sidaas ay tahay in haddaad dheefshiid xumo ka cabanayso fadlan ku dadaal isticmaalka dacarta. waxay kaloo dacartu leedahay faa'iido lala yaabo, sababtoo ah haddii qofku uu shubmayo way istaajinaysaa, hadduu qofku caloosha fadhiisatana way socodsiinaysaa, waxayna daawo u tahay xanuunka mindhicirada kacsan iyo weliba xanuunka gaastariga, khaas ahaan boogta caloosha. dacartu waxay jidhka ka saartaa qashinka iyo sunta, waxayna u fiican tahay dadka cilada ay ka haysato dhinaca qashinsaarka sida dadka beerka ama kelyaha ka xanuunsan. cilmi baadhis lagu soo daabacay joornaalka British Medical Journal waxay sheegtay in dacarta ay leedahay faa'iidooyin dhinaca caafimaadka wadnaha, maadaama ay yarayso kolestaroolka, waxay kordhisaa qulqulka dhiigga, waxay kaloo kordhisaa awoodda xambaarista oksijiinta ee unugyada dhiigga cascas. haddaba qoraalka cilmi baadhistaas waxaa lagu soo gabagabeeyey in maadaama dacartu ay ku fiican tahay kantaroolka cadaadiska dhiigga iyo yaraynta kolestaroolka iyo weliba kordhinta qulqulka dhiigga ee xididada yaryar, waxay yaraysaa halista wadnaqabadka. mucjisooyinka rabbaaniga ilaahay ku abuuray dacarta waxaa kaloo ka mid ah inay difaaca jidhka sare u qaado, waayo maado ku jirta dacarta ayaa waxaa la arkay inay unugyada difaaca u qaabilsan jidhka inay aad uga shaqayso oo ay falgeliso. waxaa kaloo la arkay haddii dacarta la isticmaalo xilliga qandhada inay qandho jabis ahaan u shaqaynayso, inkastoo aanan weli la fahansanayn qaabka ay qandhada u jabiso. faa'iidooyinka kale ee dacarta waxaa ka mid ah dacarta waxay nafaqaysaa maqaarka, waana sababta shirkado badan oo kareemyada sameeya iyo weliba daawooyinka isqurxinta iyo oogada loogu talagalay ay asal uga dhigaan dacarta. waxaa kaloo cilmi baadhis lagu arkay in xanuuno maqaarka ku dhaca ay dacartu daawo u tahay, kuwaasay ka mid yihiin xanuunka gubashada iyo dhaawacyada maqaarka. waxay kaloo yaraysaa dacartu cuncunka jidhka. guntii iyo gabagabadii mawduuceena iyo weliba faa'iidooyinka dacartu waxay yaraysaa lurka ama caabuqa inflammationka loo yaqaano, sidaas awgeed waxay u roon tahay xanuunada lafaha ku dhaca sida rheumatismka iyo riixa. digniin 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 dacartu waxyeelo ma leedahay? dacartu waxyeelo ma leedahay? dacartu waxyeelo ma leedahay? dacartu waxyeelo ma leedahay? haa, dacartu waxyeelo way yeelan kartaa. dacarta lama cabo xilliga uurka, xilliga caadada, haddii aad babaasiir qabtid, haddii aad xameetida ka jiran tahay iyo haddii beerkaagu howlgab yahay.